rajadii shacabkeenna waxaa soo afjaray damacii shakhsiga ahaa ee madaxweynihii xilligaa isaga oo majara habaabiyey dimuqraadiyaddii anigoo ah Asad Usmaan Cabdullaahi in aan halgankaas qayb weyn ku lahaa oo si dhow ula shaqaynayay dadka xaq u dirarka ah xuduudaha iyo soodnimaha waxaan u socdaa inaan ma taqaanayo filla Soomaaliya aan ka soo saaro farmaajo bas wax kala ma lahayn hadda taasi waxay dhashay maanta in kuwii uu isagu qolka ku soo xirtay ee uu islaha ku codeeyo uu ka raali geliyo shacabka Puntland inay ku waasixin dhibaan yihiin waraale ahaada kuwii baa maanta waxa laga dhigay wasiir Ali Xoosh yaa weeye waxa xildhibaanadu doonay soo xushay timcada yaa weeye waxa xildhibaanadu soo xushay bidhaan yaa weeye waa kuwii kii kale uu sheegay ulbaante magaca laha ii sheegay qowdhan yaa weeye kulli Saacadiya Salaad yaa weeye wasiirad Firdaws yaa weeye marka waxaad leedahay war waxaan ku yiri kulli dadka dani maanta ku loo adeegsanayo waa kuwii isagu u lahaa ku kalsoonaa horta qofkan dani ah waa noocaas dib maanta Puntland haysato oo aan dani isagu gacantiis ku keenin malaha hadda isaga la rabaa inuu soo isaga badbaadin lahaa farankeeda qabto waa inuu jinni ninkii keenaa bixiya isaga la rabaa soo keen lahaa wax badan ka bareebay la tahay inuu qabto dagaalkii farmaajo iyo dani wada galeen deena xisbiga nabadii nolol baaba wuxuu yahay centralized government dastuurka Soomaaliya waa federal kaas dagaalkaas waa lagu kala adkaaday laakiin maxaa xiga حسن كمان أنت نباتينه يسوي سووا مكين عطكي دنيبك ما فك داي لما مشرح وكلام ما شفت حسن على خيرات شوقي شيخ شريف بات شوقي لكن دا تايم دني محو أورن ويا حسن شيخ محمود يقول شو أنا مدحينا نقول ما أورن ما تغنى علفك إسكاه حسن شيخ أوكي وحنون معنا مركب ولا لو إن الديانة ما أنت إنه ساق كبرنا ومصيبة يسقط دني كيناي تنا يسقى كينايو إن تنا من قاضون oo hal mar laga qaban karay oo sidii jaamaca kale la musaafirin karay xataa iyaga boqorkii la socdayba buu wuxuu la yiri boqor bahalkiyo walaalow waxaan dalacsiiyay qof maskiin ah oo jilicsan dani waa nin aad u jilicsan dib aan isaga hayna maanta ma haysato isaga hadii maanta leader ah oo Puntland hogaaminaya isaga la raaso uga farda bixi lahaa oo dhawahay walaal injineer gaas كابتن واحد يجي جوابته سؤال شو قهر سي برنامج هذا إنه قال له أسد عثمان ديانا وقت جي هلجن كقبل كسول هجر داموين بدن أيو كاني يسوق قبل كخمر كاني ومر عبد المذوب لا دق على مي حتى أنا وحلقة جاي تليها قبل كبنادر بل أدوك محيس بدلي ولا لا أدوم ما حسنت هاي ومرك كول أسد ديانا وكما غضب كان أو كرقف كهاليا وإنه يوقف عندنا تاجر سنين إن الديانا تاجر سنين وإنه يوقف دحاد حقيقة لبدي مدحينه كوريسي غاز دني فرولة يسودو كلا عبدولي على غاز أيها نين كان فانسنا وما تقانا حل كقاديس كسمية هي أديس حلقي فرولة نويل كينا فرولة BSF جوجي حلقي عبدولي على غاز وأي سيدي ويجين عثمان محمد كو بالوسو عليه نين كان نيكا كبري ودني ninka shaatada u dheereeyay ninka kibriyay ma taqaan maanta inuu saa u dhab dhisto keenay waa dani sababtuna waxa weeye inta xilka qaadis ku sameeyay buu diiday markii maxaad ku diidayna waa isaga shacabka laayay markii dambana waa isaga dani dalacsiinta siiyay markay niyahow dani dib uusan isagu isku geysan ma haysata maanta waan ku qodobay isagu dani baa gacantiisa isku bireeyay dani dib uusan maantay Saciid Cabdullaahi dani isku geysan walaalow ma ay haysato waa ku soobeynaya farmaajo way dagaalameen ama hasaxnaada ama haqaldanaada farmaajo de xisbigiisa nabadii nolol baaba wuxuu yahay centralizing government dawladda inuu ka shaqeeyo oo ah dawlad hal meel awood lagu wada xukumo danina waa federaal Puntland iyo maamul goboleed dastuurka Soomaaliya waa federaal ba marka farmaajo dastuurkuba ka soo jeeday dagaalkoodii halkaas inaga dhig laba nin oo dagaalamay inna maamulkiisa difaacanaya waa farmaajo uu doonayay wax dhan inuu hal meel isugu keeno dhibaatada aan ka dhaxalnayna waa ogtahay ma taqaan nidaam system dawlad dhaxa way dagaalameen ma samaysan war qorshe dawladda madaxweyne farmaajo waad isdagaasheen laba nin oo col ah baad ahaydeen haddii ay baxdo maxaa imaan kara ma fakrin what's next waxa ku xigi doona ma fakrin hal mar xildhibaano qol ku soo xirtay
kuwaasaa dooranayuu dhahay codkiisiina waa maqlaysa waxaan u socdaa inaan mataqaanaayo filla Soomaaliya aan ka soo saaro farmaajo bas wax kala ma lahayn hadda taasi waxay dhashay maantay in kuwii uu isagu qolka ku soo xirtay ee uu islaha ku codeeyo uu ka raali geliyo shacabka Puntland inay kuwaas xildhibaan yihiin waraalahaada kuwii baa maantay waxa laga dhigay wasiir Ali Xoosh yaa weeye xildhibaanadu dani soo xushay timcada yaa weeye xildhibaanadu soo xushay bidhaan yaa weeye waa kuwii kii kale ii sheeg dhulbaante magaca laha ii sheeg qowdhan yaa weeye kulli Saacadiya Salaad yaa weeye wasiirad Firdaws yaa weeye war waxaan ku yiri kulli dadka dani maantay ku loo adeegsanayo waa kuwii isagu u lahaa ku kalsoonaa horta qofkan dani ah waa noocaas dib maantay Puntland haysato oo aan dani isagu gacantiis ku keenin ma laha hadda isaga la rabaa inuu isaga badbaadin lahaa farankeeda qabto waa inuu de jini ninki geena bixiyo isaga la rabaa suu keen lahaa wax badan ka bareebay la tahay inuu qabto dagaalkii farmaajo iyo dani wada galeen deena xisbiga nabadii nolol baaba wuxuu yahay centralized government dastuurka Soomaaliya waa federal kaas dagaalkaas waa lagu kala adkaaday laakiin maxaa xiga xasan kama anta dhibaateynaya soo isagu ma keenin codkii daniga ku soo baxay laba musharax oo kala meel joogtay xasan cali khayraad joogay sheekh shariif baa joogay laakiin that time dani muxuu oran waayay xasan sheekh maxamuud oo iigu shub ana madaxweyne noqonay ma oran ma taqaanay calafku iska xasan sheekh okay waxaynu nimaanayna marka walaalow ina diyaana maanta inuu saa u kibrana waa musiibo isagu dani keenay tan isaga keenayo inta niman go'doon ah oo hal mar laga qaban karay oo sidii jaamaco kale la musaafirin karay حتى يجي بقركي لا سعودية بو وحول يجري بقركو بقر بهالكيو ولا لو وحن دلعسي هي قف مسكين أو تلعسن دني وانين أدو تلعسن أدو تلعسن نبقى السجع هنا ما أنت ما يشطو السجع دي ما أنت اللي ده وبتلان هو جاميني السجع اللي راسوقه فرض بحلها أوكي أنا قبل أنا مثلا هجرة أنا قد دفاع بنتلان ودينت أنا كسر لك هذا بنتلان مير كلمتين أنا سيستم يكلا دبينا أنا كسر كري ضاب قولي كنت كيلومتر وعن سؤال أمانة بكون ولا وبلا أرجع حساب بلا برعة مركا أنا قد يد بنتلان والدفاعية لكن سقف مدافعينها إناء ما أنت معارض السجا إسقاء واحد معارض إنه وادت كيسوا قربيز لا وهذا نيكون السجا دت كان كهسة هذا معارض يمين كهيستا دعينا وصل رجع السجا كيني gacanta isku biray okay waxaynu nimaanana ninka ina diyaana la dhaho halgankii gobolka Sool ninkaas intuu ka geystay dabcan waxaana la sheegayaa xataa inuu iyadoo halgankii lagu jiro xataa inuu isagu khamri keeni jiray BSF ta la dhaho niyo horta dagaalkii intuu socday horta ciidamadu qabiil bay ahaayeen Cismaan Maxamuud hada ciidamo maamul ah ma aadan dagaalka ciidamo harti ah baa tagay Cismaan Maxamuud ki tagay meesha waxa kamid ah ciidanka ma taqaan meeshaas tagay laakiin si eed waxa jirtay markaas baraha bulshada oo qabsatay in ciidan laga soo xilay BSF ay khamri magaalada soo galiyay إن الديانة هو كشل عدرها يا خمر قبل وكجناع صدا. لبض بو كجناع صدا. أوكي. هذه هو ووقف في شلا وحنون ما نينا حسن الشيخ محمود يدني واحد يسكو هايستان. دني وقرنق سليمان لويت. ما دام وقرنق صدي ودهاي ديانو ميل فقارا بانكو كلا بحينا. وهم هاي سببت بدحوينه إلى هذا وصل شباب لحسن الشيخ محمود. إن حسن وحو أجي هاي. أيه. وحو أجي حسن. وحميش كترو أجي. اوكي حقيقه دبته oo maanta meeshan taalo buu og yahay in dooda looga adkaanayo buu og yahay xasan markii kuma dhaco inuu dani aqbalo ma taqaanay waxa uu wato inuu dani aqbalo laga yaabo okay waxaynu u nimaanaynaa maanta markii la magacaabay ninkii ina diyaana ahayd dad markii la magacaabay ina diyaano maleeshiyaadka BSF gobolka bari xabado khayr xadii rideen xabadii xataa dad bay waxyeeleeyeen Sulamo orakoro BSF tu waxa ay u dhaqmaysaa dhaqankii kooxaha argagixisada way caday taas shacabkii boosaasan wax suuqayeen walaal oo ay gumaadayeen oo ay ma taqaan leeynayeen marka taas wax lagu leeyahay ma aha المديانو تاس وحلا قولا يابا ما أهن وحالك سو غارسيين وادني أدر نين والبا أهرير بوتلان هو هايستا وحاكو في الذين ودوريا عسان حمودو ده كرسي قادين ناني ما تقانا إيه أقرين هذا نين كلا ولي بتوان تغيي انت هاساكو في اللين أنا جاي قد داي إنو ده اللي هو معارضة وحا معارضة ورير كيسي داني مركي إساقا وي في النظم مياشا تاغين أو تشني عسان قاسو أدوكا رون كوشا نوانكا عسان محمود داني أياغانا حلقا أقلن ولي نوانكا بادر وما أقلن ويسيان دني جفدي يسيان واللي تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وربها الدراية إن كان عثمان محمود ويا داية إن كان داية نينا نادر كينا وياه
وقورة حيلك وما قورة ينبهدل oo waxay wadiiday sideebuu nin bahdira u qaban karaa sideebuu nin bahad ulbahantaa madaxweyne Puntland uga noqon karaa ilaa iyo 2012 kan taariikhdiisa wana yadani waxaana wax hadda bilowda ma ilaa 2012 bay ku dhagan yihiin ninkaas nimanku oo ay haystaan markay walaalo nimankan bahdir rooble Ismaan Maxamuud walaalayaal ka daaya sida ninku waan adeerkiina ka xishoodo war boqor oo meeda boqornimadaadii boqor ka daarad masaanad ku ahayd walaalow laba nin oo ilmo adeera baadan isku ogolayn dani uu idin taraasulay maanta inaad cadow u soo raacdaan ma ahan nimanka ku haya annaga 90 koodaad kaarnayo waxaan dajinaynaa dastuur baan dhiganaynaa nimankaas inaad cad idin turaataan ma ahan tolnimadii aaway walaaltinimadii aaway waan ku celinayaa mar kale dhibka meesha Puntland haysato ma ahan dani diyaano waa reerkaas weeye adeer ina diyaano waa laga hubbadan yahay hadii laga hudbaday ma anigu tifidaan ka imaaday oo Cumar Maxamed marka laga soo tagay reer mahad haduu ka Puntland yaa la kala baraan leena kala baro barbaad leedahay de hadana mucaarad baan ku ahay dani anigu waxaan aaminsanahay dani inuu bari tagayay dabcan aad hadhowna doorasho galayo ha okay ma aamid baan saas aaminsan laakiin ninkan waxay moodayaan qolyahan ay dhimanayaan hadaysan xil qaban qolyahan waxay moodayaan inay dhimanayaan hadaysan xil qaban ka daayan la ninkaas dhalinyarada ah حينيها وقف قال نين كان أضيق دنينا فرها كقالا حينيها وقف نين كان رنتو وشيء دتك وكل شيء يجري آوي طبعا اسمه البانتين لو باقي نقولنا اوكي كابتن وحين وصل نقولنا كونفورت الصوماليه تليها نساء دوان انتيان حسن الدوران وحو داي فيل الصوماليه waxaan ka rabaa nin hawiyaha inuu qabto hada waa taliyii dhamaay ciidamada oo nisa oo hay'adii sirdoonka tan kale jirta xasan sheekh maxamuud wuxuu ku qodbadan jiray farxaan oo dhiiqa lugaha lagu galiyo saadiq joon raac dadkiiba hadda maanta Soomaalinimo iyo cadow waxay bilaabayaan durmaan Ethiopia la dagaalamaya bal ariga waxa ka oran lahaa waxa ka jiraan waa been hadaad maqashid xasan baa wuxuu la dagaalamay Ethiopia waa khiyaali sanbalol shii Ethiopianka am yaa la dagaalamay Ethiopia maya oo xalana ay joogan saraakiisha Ethiopia maya waa khiyaali waxa siyaan ugu shakay waxaas waxa leedahay waa khiyaali wax iska been abuura dabcan barnaamijka halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya adna fakarkaaga hoosna nagula wadaag